kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qaybtii 243aad ee barnaamijka tubta nabadda oo aan toddobaadkan ku eegi doono kaalinta dhalinyarada ee ka qaybgalka siyaasadda iyo talada dalka iyadoo toddobaadkan magaalada Muqdisho ay ka dhaceen kulamo dhalinyaro oo qaatay muddo 2 maalmood ah kuna saabsanaa sidii dhalinyaradu ay door muuqda uga qaadan lahaayeen hanaanka siyaasadda dalka iyo sida ay ugu tartami karaan golayaasha kala duwan ee dawladda. waxaa barnaamijka idinla socodsiin doona Fadxi Maxamed Axmed iyo anigoo ah Cali Maxamed Guutaale. hase yeeshee dhegeystayaal aan marka hore si kooban u eegno muhiimadda ka qaybgalka dhalinyarada ee dhinaca siyaasaddu leedahay. dadka ku nool Soomaaliya ayaa boqolkiiba 65 waxaa lagu qiyaasaa in ay da'doodu ka yar tahay 25 jir, taas oo ka dhigan in awoodda dhalinyaradu ay tahay mid aad u xooggan. waxaana jirta in dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed ay doonayaan inay qayb ka noqdaan isbeddelka siyaasadeed iyo horumarineed ee Soomaaliya, hase yeeshee ay dhalinyaradu la kulmi jireen caqabado fara badan, waxaana taasi ay keentay inay si guud ay dalka uga bilowdaan dadaallo ku aadan sidii caqabadahaas ku horgudban dhalinyarada looga gudbi lahaa, islamarkaana dhalinyarada loogu dhiirigelin lahaa inay xoojiyaan kaalintooda siyaasadeed. haddaba si aan wax badan uga ogaano dadaalka ay ku jiraan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan waxaan wareysi kala yeelanay Faadumo Cabdulaahi Xasan oo xubin ka ah xisbi lagu magacaabo Xiis, kaas oo qayb ka ah hamiga siyaasadeed ee dhalinyarada. Faadumo soo dhawow, ugu horreyn waxaad nooga warantaa nooca caqabadaha ay la kulmaan dhalinyarada hamiga siyaasadeed leh. caqabaduhu way jiraan oo qaarkood ay hadda meesha ka sii baxayaan, qaarkoodna maxaa la dhahaa ay weli taagan yihiin, weliba culays ay ku yihiin. markii aan u soo noqono arrintan ah doorashooyinka hadda taagan iyo caqabadaha ay wajahayaan dhalinyarada, tan ugu weyn ayaa waxay tahay waxa la filayay doorashadu inay noqoto qof iyo cod, waa noqon weysay oo waxaa lagu laabtay doorashada dadbaneed. saxaabta ay aad ugu hami iyo hamuun qabeen dhalinyarada Soomaaliyeed, laakiin maadaama ay dhici weysay dhalinyaradu waxa ay hadda caqabada ku ah ayaa waxay tahay in lacagtii diiwaangelinta oo aad loo badiyay, ayadoo aan ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed maanta aysan la jaan qaadi karin dhalinyarada asaagooda ah duruufaha wadanka ka jira aawadiis. sababtoo ah waxaan ku noolnahay wadan 30 sano burbur iyo dhibaato la soo dhacay raba inuu ka kabsado waqtigan duruufaha dhaqaale ee jira awgeed iyo caqabadu waxay ku noqotay registration fee-ga oo ay aad ogtahay in laga dhigay golaha shacabka $10,000 aqalka sarena lahayba isaga waa 20,000 caqabada ugu horeysa waa taa. waxaa ayadana sidoo kale caqabad ku ah 4.5 oo aan ognahay marxaladda uu wadankiina ka soo kaban lahayd laftirkeeda saameyn weyn ku leh, inkastoo dadkii naga waaya aragsanaa iyo dadkii waaweynaa ay yiraahdeen maalin buu xal ahaa, markastana waxaan maqalnaa waa xal xaq ma aha. Faadumo, marka bal nala wadaag waayo aragnimadaada ku aadan ka qaybgalka iyo tababarka dhalinyarada hamiga siyaasadeed leh iyo sidoo kale doodaha siyaasadeed ee dhalinyarada. tan kale waxaad noo sheegtaa faa'iidada ugu weyn ee tababarkaani lahaa. tababaradu maanta dhalinyarada hamiga oo leh siyaasadda waxay aheeday meesha kaliya ay faa'iidada ka helayeen, ayna ku dareemayeen markii ay joogaan in ay noqon karaan wax waliba oo hoggaan ahna ay qaban karaan. sababtoo ah waxay dareemayeen nafis aad u ballaaran, waxay u ahayday dhiirigelinta kaliya ay haystaan dhalinyarada maanta hamiga siyaasadeed leh ay jooga wadanka gudihiisa, maadaama aysan jirin cid kale maanta oo garab qabanaysa, xitaa ugu yaraan ay ku dhiirigelinaysa. waxay ahayday midda ugu muhiimsan dhalinyaro aan aqaano oo aad u firfircoon oo aad u hamilane meeshasi ay ka soo baxeen ama ay kaga dhiiradeen in ay maxaa la dhahaa fikirkooda ay ku saleeyaan siyaasadda. maanta jaamacadaha wadanka waxaa ka soo baxa dhalinyaro aad u fara badan, kuwaas oo barta IR-ta, political science-ka,
adiga waxyaabaha kuliyadaha ku tacalluqa siyaasadda dalka ama meelaha siyaasadda laga soo geli karo ayagoo hamiyo leh ayagoo rajaynayo in markii ay ka soo baxaan tillaabsan kara laakiin duruufihii ku xeernaa oo wadanka iyo dhibaatadiisii ahayd ayaan u wada saamaxaynin ama inta badanba u saamaxaynin inay hamigooda ka dhabeeyaan ama hore u socdaan duruufaha dhaqaale ee wadanka ka jira aawadiis. Laakiin markii la joogo tababarada xilliyada tababarka la qaadanayo ayay aad nafis ugu lahaayeen uguna dareemayeen waxayna ahayd meesha keliya ay ka helayeen waayo aragnimada iyo aqoonta. marka maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee sida degdeg ah loogu baahan yahay si kor loogu qaado ka qaybgalka dhalinyarada ee siyaasadda dalka yaase mas'uul ka noqon kara in tallaabooyinkan la qaado? Waxyaabaha hadda sida degdeg ah loogu baahan yahay ayaa waxaa ka mid ah in dhalinyarada loo fududeeyo ka qaybgalka maadaama wadanka doorasho u aaday inay kasoo muuqdaan baarlamaanka wadanka oo loo baahan yahay in loo fududeeyo maadaama registration feegiina uu badan yahay erga 101 ruux ahna ay ka qaybgalayso ana iska ognahay inay wax waliba maanta ay dhaqaale ku xiran yihiin in loo fududeeyo ka qaybgalka siyaasadda ama baarlamaanka soo aadan inay kasoo muuqdaan waa taa midda loo baahan yahay yaa marka mas-uuliyadeeda qaadi kara marka aan fiirino mas-uuliyaddu hadda waxaa doorashada gacanta ku haya ra-iisul wasaarahayna maxamed xuseen rooble waxa uu ka geysan karaa gacan aada u ballaaran maadaama doorashadii wadanka hadda oo asaga gacanta ku hayo. aad bay u mahadsan tahay. taasina dhegeystayaal waxay ahayd faadimo cabdulaahi xasan oo xubin ka ah xisbi siyaasadeed oo lagu magacaabo xiis kaas oo qeyb ka ah dhalinyarada hamiga siyaasadeed leh. walina dhegeystayaal waxaan bartanka uga jirnaa qaybtii 243aad ee barnaamijka tubta nabadda waxaana inoo soo socda qaybihii kale ee barnaamijka. markana dhegeystayaal aan u gudubno waraysi aanu la yeelanay Axmed Cadow Cali oo u ololeeya arrimaha dhalinyarada isla markaana ah isuduwaha urur lagu magacaabo mutadawiciinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaana aan ugu horeyn weydiinay bal inuu noo sheego sababta ay muhiimka ugu tahay dhalinyarada inay ka qayb qaataan hanaanka siyaasadda iyo golayaasha go'aan gaarista dalka. dhalinyaradu waa hogaamiyaasha mustaqbalka ee wadanka waana waxaana la cadeeyay ama tirkoobkii ugu dambeeyay wadanka wuxuu sheegayaa inay yihiin kuwa ugu badan ama dadka ugu badan ee wadanka ay ku nool inay ayaga yihiin. marka sidaas awgeed waa maadaama ay yihiin hogaamiyaashii wadanka oo beri ay noqon doonaan tirkoobkuna uu sidaas cadeeyay waa marka waxa ugu muhiimsan ayna yihiin dadkii inay wax fahmaan la qabo oo wadanka mustaqbalkiisa dhisidiisa iyo lafdhabarna ay u noqon doonaan inay wax badan ka qayb qaataan. marka ayna yihiin dadka ay noqon kara in loo adeegsado hadday tahay colaad iyo waxyaabo dhib ah oo wadanka ilaahay naga qabte. marka dadka inay fahmaan la rabo oo waxyaabahaas inay ka foojitaadaan la rabo. midda kalena dhalinyaradu waa kuwa ugu badan ay saameyso markii ay noqoto in abaaro ama colaad iyo wadanka hadday ka dhacdo kuwa ay saameynta weyn ay ku yeelato ayaga waaye. marka sidaas awgeed waa inay ka qayb qaataan oo ay noqdaan kuwa fahmo mustaqbalkii wadankiina inay ayaga yihiin. laakiin waxaan ognahay in dhalinyaradu ay la kulmaan caqabado fara badan marka ay timaado dhanka ka qayb qaadashada siyaasadda iyo goobaha kale ee dadweynaha. marka sidee ururkiinu u taageeraa dadaalada dhalinyaradu ay ku jiraan? anaga ka urur ahaan kasoyba ahaan ururkeeno waa urur mutadawacnimo ah oo anagu aan aasaasanay marka oo dhalinyaro badan oo aqoon-yahano isku yimaadeen. annaga garab ahaan iyo sidaan u taageerno waxay tahay oo aan uga qayb qaadano inaan tababaro badan aan u samayno una sheegno inay noqdaan ama ay fahmaan in wadankii ama ay u baahan yihiin oo ay noqdaan kuwo oo mar walba
noqon doono wadanka berri ubaxii ama jiilka usoo bixi lahaay oo odayaashii iyo kuwa hadda joogo aabbayaasheenna inay bedelaan la rabo. marka waxyaabaha annaga aan dhalinyaradaas aan ku qabanno waxa ugu badan waa tababaro ma garan. ugu dambeyn marka maxay tahay fariinta aad u direysaan bulshada marka ay timaado doorka dhalinyarada ee siyaasadda iyo qaybaha kale ee nolosha guud ahaaneed? fariinta annaga waan dhalinyarada iyo bulshada wadanka idil aan annaga aan u dirayno waa in dhalinyaradii fursad la siiyo, dhalinyaraduna aysan noqonin kuwo oo ay meel inta iska fadhiyaan oo fursadii ayaga ay soo doonatay aysan noqonin, inay noqdaan kuwo oo haddii ilaahay ku roon yahay oo wadankii ay dareemaan inay yani wadankii u wada istaagaan, kuwo wax wada qabsada ay noqdaan, aysan noqonin kuwo oo meelaha intay wax barteen waxbarashadoodii ay barteen ay la hungoobin. aad buu u mahadsan yahay. kaasina dhegaystayaal waxa uu ahaa Axmed Cadow Cali oo u ololeeya arrimaha dhalinyarada isla markaasna ah isku duwaha ururka mutadawiciinta dhalinyarada Soomaaliyeed. markana dhegaystayaal waa dhinacii wararka barnaamijka. wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan oo ka qayb galay shir madaxeedka Antalya ee dalka Turkiga ayaa la kulmay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga kaas oo ay ka wada hadleen xaaladda dalka Soomaaliya iyo sidii labada dhinac ay uga wada shaqayn lahaayeen sidii Soomaaliya ay uga gudbi lahayd xilligan adag. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Siciid Xamse ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu baaqay inay door muuqda ka ciyaaraan arrimaha horumarinta iyo siyaasadda dalka. wasiir Xamse ayaa hadalkan sheegay xilli uu ka qayb galayay kulamo dhalinyarada Soomaaliyeed ay kaga arrinsanayeen doorkooda siyaasadeed iyo ka qaybgalka golayaasha go'aan gaarista ee dalka. markana dhagaystayaal anagoo soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijkeena bal aan u weecanno dhinacii maaweelada aan wada dhagaysano hees uu ku luuqeeyo fanaanka Sidi Cali Winkey oo ka hadlaysa doorka dhalinyarada Soomaaliyeed. dhalinyarada kacotoosa didibkii xargaha goosta dhidhiyay sidii goosha sidii galowga dhilooda dacaadiidku wadaale dhawrtada ka weynaada muruqiina dheefaysta didibkiina maaraysta dambalkaygu waa baaqe deftiisu waa guule nabadgalatay weeyaane idinkoo dhabibyaysan umuciyo lixad sheegtay kumayal sara u dhaafay California Dayton Minnesota soo dhaafa kastaba kasoo duula ingiriiska sii dhaafa dhadadayo cayaanta daruura kusoo dhuunta dhoolkiyo hilaaciisa maqashiyo aqoontiina bad kasoo dhigo keena hoy dhaliyaroy toosa si waliba sii dhaanteeye dhaxalkiini bayaane dhulka hooyo soo aada qaleecada ka jira beesha. waa tahay dhagaystayaal heestaasi macaan ee dhalinyaro ee uu inoogu luuqeynayay fanaanka Sidi Cali Winkey waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeeni tubta nabadda oo ay maanta mar kale halkan idinkala socodsiinayeen Cali Maxamed Guutaale iyo anigoo Fatxi Maxamed Axmed. fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina adinkoo noogu soo hagaajin kara barta aan ku leenahay Facebook oo ciwaankeenuna yahay tubta nabadda. hase yeeshee waxaad hadda u diyaar garowdaan qaybtii u dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhageysanaysaan.